Faahfaahin dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa qarax goordhow ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, kaas oo dhawaaqiisa laga maqlay inta badan degmooyinka gobolka Banaadir. Qaraxa ayaa waxaa lagu soo waramayaa inuu ka dhacay agagaarka isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho, waxa uuna geystay khasaare kala duwan. Wararka ayaa sheegaya in qaraxa uu ka dhashay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey, kaas oo la sheegay in lagu weeraray taliyaha qaybta booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole oo xilligaasi la socday kolonyo gaadiid ah oo maraysay wadadaasi. Sidoo kale waxaa jira waxyeelo soo gaartay dad badan oo shacab ah oo wadada marayay iyo kuwo kale oo ku sugnaa goobo ganacsi oo ku yaala halkaasi. Xaaladda goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa haatan aad u kacsan, waxaana gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee dowladda Soomaaliya. Taliyaha qaybta gobolka Banaadir Farxaan Qaroole war qoraal ah oo kasoo baxay taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed ayaa waxaa looga hadlay qaraxii ismidaaminta ahaa ee barqanimadii maanta isgoyska Banaadir lagula beegsaday taliyaha booliska gobolka Banaadir Farxaan Qaroole. Taliska ayaa shaaca ka qaaday in qaraxa uu ka dhashay gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa, kaas oo lagu weeraray kolonyo gaadiid ah oo uu la socday Farxaan Qaroole. Qoraalkan ayaa waxaa lagu sheegay in taliyuhu uu nabad qabo, balse qaraxa uu geystay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Weerar argagixisadu soo maleegtay ayaa lagu weeraray gaari laga soo buuxshay walxaha qarxa, kaas oo lagu weeraray taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir Farxaan Maxamuud Farxaan Qaroole. Taliyuhu waa uu nabad qabaa walow uu jiro khasaare qaraxu ku reebay isgoyska Banaadir ee magaalada Muqdisho. Argagixisadu cidna kama niyad jabin karto adeega ummadda loo hayo, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay taliska booliska Soomaaliyeed. Wararkii ugu dambeeyay sidoo kale waxay sheegayaan in khasaaraha ka dhashay qaraxa uu gaarayo 30 qof oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa weli cakiran, waxaana ka muuqda burbur xoog leh oo gaaray dhismayaasha ku yaala halkaasi. Ilaahay subxaanahu wa tacaala intii qaraxaasi ku dhimatay ha u naxariisto, intii ku dhaawacantana caafimaad degdeg ah ha siiyo. Ummadda muslimka ah cidii dhibka ku hayso ummadaas muslimka oo masaakiinta oo waxba galabsanna Ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga wada qabto. Assalaamu calaykum.